السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دين سلامي دمان بعد كوحرن جنال كميوتس هيلب. سلامتي تبقى خير تنجح على حي مرولبا. ما أنتو حربا إن إذن لبداكو عشر يرو قروح بدن وكو سابسن نتوركينج كا عشر كان وحكو سابسن يحي سيدي لو كان كرا باسورد أما واي باسورد عاد كليسي كمبيوتر كاغا يعني waxaan ka badaa wax kale ma ahan tusaale ahaan internet aan tagay ama internet kayfa ahaado ama meel walba ahaado ama internetkayga caadiga passwordkiisa ay ka dhufay sidee loo ogaadaa cashirkan laba nooc waa loo isticmaali karaa dhinaca waxa waaye in loo isticmaalo dhanka xun oo hacking ah dhinaca waxa loo isticmaali karaa inaad ku ogaatid passwordka hadduu ka dhumo in case saad u ogaan lahayd oo aad ugu save gareysan lahayd computerkaaga so wax kale ma sameynaysid waa tip yar ama steps kaas oo ku fududeynayo inaad ogaato passwordkaaga sidee loo ogaadaa passwordka wax kale ma ahan cashirkan waxaan u soo galiyay kaliya educational purpose waa ujeed waxbarasho kaliya laakiin markii laga hadlayo internet kayfiyada markii laga hadlayo badanaa hadii loo fiiriyo Soomaaliya update ma ahan waxaan ka wadaa means internet kayfiyada jiro caalamka tusaale ahaan hadii lacag la'aan laga dhigo yani free waaye laakiin hadii lacag ay tahay internet kayf lacag ay hadaad gashitid ama passwordka lagu galiyo oo lacag laga qaado means passwordkaas oo lagu galiyo internetka means 2 daqiiqo kadib inuu isbedelo waaye laakiin markii Soomaaliga la joogo ma u maleynayo inay saas tahay sidee loo hacking gareeyaa marka aniga ma u baranayno cashirka maanta in aan hacking ku sameeyno internet kayf laakiin waxaan u baranaynaa in aan hadii password aan iloobo sideen ugu ogaan karaa ama computerkayga password wifi la geliyay sideen aan wala soo bixi karaa kaliya waxay kaaga xiran tahay inaad taqaano kaliya waxyaalo yar oo kooban waxa kamid ah waxyaalaha laga rabo inaad baratid netsh waxa la dhahayo netsh waa command la qoraayo looguna talagalay configurationka ama internet ama network configurationka ku fududeynaya inaad ku aragto yani networkyada computerkaaga ku jiro yani meeqa network computerkaaga ku xiran meeqa network isticmaashay qaabka aad u isticmaashay so netsh markaan qeexno waxa waaye is a command line waa amar command line waaye waa amar which kaaso remotely display remotely display wuxuu ku soo bandhigaa wax loo yaqaano network configuration ku soo bandhigaa meesha network laga sixi lahaa waay network configuration ku soo bandhigaa wax kalamaan waa meesha network laga sixi lahaa sidoo kale netsh maxaa laga soo gaabiyay wax weyn ma aha waxa laga soo gaabiyay network shell gidaarka network shell waxa laga wadaa gidaarka network shellskiisa ku soo bandhigaa so waxyaalaha loo baahan yahay aan qorayno ama aan ku qorayno CMD waxaan isticmaali doonaa wax loo yaqaano CMD ama command line aan isticmaali doonaa so si aan u soo kiciyo CMD-gayga waxaan tagi doonaa startiga kadib meesha waxaan ku qori doonaa CMD so CMD markaan ku qoro meeshan aan tagi doonaa waxaan leeyahay ama halkan aan tagi doonaa run administrator aan leeyahay so hadii computerkaaga Windows uu yahay Windows 7 uu yahay means meesha ma kaaga soo muuqan doono aniga hadda waxaan isticmaalayaa Windows 10 so meeshaan aad tagi doontaa waxaad leedahay right click kadibna waxaad leedahay run administrator so run administrator markaad dhahdo waxa ku soo bixi doona saano kale kadibna waxaad leedahay yes so markaad yes dhahdo waxa soo bixi doona CMD-gi aan wax ku qori lahayn so waxa aan qorayno halkan aan ku qorayna saan u ogaano waxa aan qorayno waxay yihiin so waxaan leenahay fiiri meeshaan waxaan ku qori doonaa meeshaan systemkan aan soo koobiyeysan horta si aad u ogaatid waxa aan sameynayno waxa ay yihiin kana soo koobiyeysan copy aan leenahay halkan ku paste gareynayna so meeshaan waxaan ugu jeedaa c/windows/system32 so meeshaan waxaan ku qori doonaa marka waxaan leeyahay netsh oo macnaheedu yahay network shell-kayga aan aniga leeyahay walan ama wireless-ka LAN-ka ku dhex jiro show profile isoo muuji waxyaalaha ama ciwaanada aan la soo galiyay ama profilada wireless-yada la soo galiyay ama network aan ku xiray soo muuji so kana soo koobiyen doona
copy aan leeyahay ama haddaan rabin yani ani casharka inaan kugu fahansiiya notepad ugu qoraya wax kale maahan so waxaad qori doontaa kaliya waxa loo yaqaano net wellan show profile. It means macnaheedu yahay network shellka ku jiro computerka profileska ama ciwaanada aan soo geliyay networkyada passwordadooda ama waxa isoo muujisaa magacyadooda isoo muuji password mahaya kaliya magacyadooda isoo muuji wax kan so markaan rabo magacyada inaan soo muujiyo meeshan aan ku qori doono marka waxaan leeyahay net shell ama net markaan soo gaabiyo wellan aan leeyahay kadib waxaan leeyahay show profile. Okay, let's do this right there. aan ku laabto suuqa xir yara dhacay cls deh okay waxaan leenahay tusaale ahaan net markaan dhaho waxaan leeyahay wellan markaan dhaho show profile aan leeyahay show profile markaan dhaho it means wuu ku xirma wuxuu tusin doonaa userska ama profilada aan isticmaalay all profileska aan isticmaalay intaan leeyahay so meeshan fiir waxa kaaga soo baxay users profile group waxa lagu dhahay meeshan group policy tusaalaan profiles on interface wifi gaaga isticmaasho waxa kamid ah CET xaaji dhafoorka sidoo kale Miro wireless waxaan dhanaan isticmaalnay so marka waxaan rabaa inaan ogaado passwordada si aan passwordada u ogaado waxaan sameysan doonaa filekaas aan kusoo shubi doono folderka aan wado waxa waay wax kale maahan waxa waay meeshaan aan keeni doono meeshaan rabaan geyn karaa laakiin sida ku wanaagsan inaan geeyo tusaalaan marka waxaan sameynaa kuwa ma ka bixinaa meeshaan hadhow waa delete karena continue leeyahay iga tirtir okay continue waa tirtirmeen so marka meeshaan aan tago inta waxaan kusoo qori doonaa marka si aan usoo import gareeyo ama usoo export gareeyo passwordada hadda password ma garanayo meesha uu yaalo passwordka so passwordka waxaan leeyahay net hadana waxaan ku celinaa waxaan leeyahay net markaan net dhaho waxaan qori doonaa waxa la leeyahay wellan export waxaan dhoofin doonaa wax loo yaqaan passwordska inta ku dhoofinaa marka waxaan leeyahay profileska aan u baahanahay passwordadooda marka rabo inaan dhoofiyo waxaan leeyahay folderka aan ku shubay magaciisa aan sheegaa laba dhibcood ama equal aan leeyahay equal c laba dhibcood aan leeyahay slash key is equal clear macnaheedu wax kale maan keygeyga wuxuu la mid noqon doonaa clear okay clear so markaan saas dhaho kadibna waxaan leeyahay enter okay qalad yar dhacay meesha waxa kugu qoran error yar jiro waxaan leenahay cls kusoo laabo okay waxaan leenahay network ama net shell markaan dhahno waxaan leenahay wellan export. Let's do this export markaan dhahno profileka aan dhoofinayo qoraya meeshaan ku qoraya kadibna waxaan leeyahay folder equal aan leeyahay ama equal deh okay c laba dhibcood backslash tan isticmaal so markaan saas dhaho waxaan leeyahay key equal clear so markaan saas dhaho waxaan leeyahay enter so waa ujeedaa meeshaan waxaa lagu dhahay userkan loo yaqaano profile interface kan loo yaqaano ama wifi kan loo yaqaano CET is saved in waxaa lagu save gareeyay XML ahaan loo save gareeyay successfully si laba dhibcood lagu save gareeyay sidoo kale xaaji dhafoorka waa la save gareeyay so waxaan rabaa inaan ogaado passwordka Miro wireless inaan ogaado rabo passwordkaas so waxaan tagi doonaa si laba dhibcood Windows kan tagi doonaa ama CMD da waa kan meesha maxaa ku yaala kanaan fiirinayna kanaan ku bilaabayna waxaan leenahay fiiri open aan leenahay with waxaad ku fur abo notepad ku fur ama notepad aan ku furayna edit aan leenahay so kan ma shaqeynayo aan ku laabto so waxaan leenahay open with waxaan ku furaynaa yes Visual Studio Code ka ku furayna waxaan arkaynaa marka passwordka meesha ku qoran yahay intee laga arkaa passwordka so passwordka wuxuu ku qoran yahay meesha ay ku taalo magaca ah waa kan waa ujeedaan key material passwordkaygu waa Miro content sodanico passwordkaygu waa Miro content sodanico meeshaan ay ku qoran tahay key material wuxuu noqon doonaa passwordkaaga hadda waxaan u maleynayaa inaad fahanteen cashirkan wuxuu ka hadlayaa waa networking so cashirkan haddaad fahantay oo aad ka faa'iiday wax badan waxaan ku leeyahay channelka subscribe saar oo asxaabtaada la wadaag oo share garay sidoo kale cashirka haddaad ka heshay like saar so waxaan idin leeyahay intaan cashir lamid ah ku kulmi doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh